ummadayda Soomaaliyeed ku soo dhawaada adeeg dabiici oo herbala oo inaga xalin doona mushkiladda babaasiirka haddii aad la cataabaysay muddo fara badan ama aad ka cabanaysay babaasiir maanta xalkeedii baan ku haynaa adeeg dabiici oo tayo sare leh isla markaana kula xalin doona kaana suulin doona babaasiirka waxaan ku haynaa adeeg herbala oo iskugu jira nafaqayn isku dheelitir iyo waliba inuu xalliyo mushkiladda babaasiirka sideedaba waxaynu ognahay babaasiirku wuxuu inta badan ka yimaadaa calool istaag fara badan sidoo kale wuxuu ka yimaadaa qofka in fara badan fadhiya oo runtii ama gaadiidka waaweyn ha wado ama muddo dheer ha shaqayn waayo ha dhaqdhaqaaqi waayo ama wuxuu ka yimaadaa inta fara badan cilado xagga caloosha ka yimaada sidaa darteed babaasiirka dibaddu gudaha ayuunbuu ka soo baxaa ka guduhuna gudaha ayuunbuu ku dhex dhashaa sidoo kale waxaan idiin haynaa alaab markaa ku habboon inay si degdeg ah idinla xalliso cudurka loo yaqaano babaasiirka adigoon lagu qalin adigoon la jarin adigoon mushkilada badan u marin ayaa waxaynu ku xallinaynaa hab dabiiciya oo loogu talagalay oo dunidoo dhan u isticmaasho adeegan haddaba dabiiciga ee tayada sare leh ee loo isticmaalayo urujirta ee la cabayo ayaad u isticmaali doontaa kuna xalin doontaa cudurka babaasiirka loo yaqaano insha Allah biidnillaahi kariim waxa ka tagi doona cununkii waxa ka tagi doona firankii uu sameeyay waxa uu furfuri doonaa nabaradii iyo xididadii uu qabsaday isla markaana uu baabi'i doonaa si caadi oo dabiici ah haddaba adeegaasi waa aloe vera gel waa caagada dacarta huruuda oo in badan dhaqaajinaysa calooshii oo nadiifinaysa isla markaana keensanaysa inuu in fara badan xallismo mushkiladihii aad ka cabanaysay ahaa inay babaasiirtii qabsatay qabsina muhiim ku ahaa ama xididada muhiim ku ama halbowlayaal qaybaha taranka kamida way xalismi doontaa sidoo kale waxa ku jira kiniina runtii khudrad ka samaysan oo aad ugu habboon iyaguna inay ka qayb galaan jilcinta caloosha iyo sidoo kale inay xalliyaan oo ay baabiyaan finkii markaa meesha ka soo baxay haddii aad ka cabanaysato dibadda dareemiyo dabiiciya oo dusha laga marinayo oo in fara badan naaqusinaya dheecaanka u diidaya isla markaana ka soo nuugaya meesha ayaan ku siin doonaa ku soo dhawow adeega dabiiciga ee loogu talagalay xalinta babaasiirka idam alle ilaahay baynu la kaashan waanu kaa tegi doonaa insha Allah